السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالية سو دوادا meel kastoo adduunka ah ka joogtiin farxad ku waara. Jimco wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah, jimco wanaagsan. Haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay, fadlan waxaan kaa codsanayaa channelkeena subscribe saarto, like saarto, sii share gareyso. Haddii aadan igu cusbeenad hore ila joogtan sidoo kaleeto like-ta noo saar, noo sii share garee, waa codsi. Like-ta aaday muhiim igu tahay sababtoo ah videoga sare ayuu u kacayaa, asxaab fara badan ayaa arkayso. Marka insha Allah ismartiyanina asxaabteyda qaaliga ah, minankeena waaye, soo dhawaada. Mar walba waxaan idin leeyahay soo dhawaada, minankeena waaye asxaabteyda qaaliga aan jeclahay. Maanta codka ay xiran, marka waxaan rajeynayaa inaad codkayga maqli doontiin haddii Ilaahay idmo insha Allah. Codkana waa xiran yahay. Marka asxaabay jimco wanaagsan ayaa idin leeyahay mar walbo. Jimcaha khayrkiisa Allahna waafajiyo. Asxaabteyda qaaliga aan jeclahay, sida arkaysaanbo qurxintii ayaan ku guda jirnaa insha Allah. Maanta insha Allah sida arkaysaan waxawaaye ma badno waxa aan ka subsanayno qurxinta, waana qurxin dabiici ah. Waxaan ka subsanaynaa sida shaashada ka arkaysaanba laba shay. Labadaas shay oo aad ugu wanaagsan haddii wajiga aad ku leedahay daldalool, sida had sawirka ka arkay sidoo kaleeto wajigaagu uu noqday ama daldalool aad ku leedahay. Laba daldaloolkaas ayuu kaa nadiifinayaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin haddii Ilaahay idmo. Marka la soo dhawaado. Waxaa soo qaadanaysaa yaanyo ayaa soo qaadanaysaa. Yaanyada markaa soo qaadatid waxaa soo binaysaa, waa soo hooleysaa. Markaa soo hoosho kadib waxaa soo binaysaa weel ku soo shubanaysaa, weel yar oo ugu tala gashay kareemka inaad ku subsato ayaad ku soo hoolanaysaa. Markaad ku soo hoolato kadib waxaad soo binaysaa fasaliinkaas ayaa soo qaadanaysaa. Fasaliin nooc walba ha ahaado, waa un fasaliin ayaad soo qaadanaysaa. Waxaa ka soo qaadanaysaa qaadada haafkeeda ayaad soo qaadanaysaa. Kadib waxaa ku soo daraysaa yaanyadii aad soo hooshay. Markaa ku soo darto waxaad soo binaysaa biyo ayaa soo kululeysanaysaa. Weel ku soo kululeynay, digsi, baaquli, wuxuu rabaa ku ahaado. Adi markaas weelka haysato aad ku soo kululeysanaysaa oo macquul ku ah, oo weelka adi aa wax ku diyaarsatay dhex galaayo. Markaa soo kululeysato kadib waxaad dhex dhigaysaa kareemkii adi aad subsatay, yaanyadii aad soo hoolatay, kadibna aad ku dartay fasaliinkii. Kadib waa isku kululeynaysaa. Fasaliinkii aa kululaanaya. Muhiimaddu waxay tahay fasaliinka inuu kululaado. Fasaliinka markuu kululaado oo isdhexgalo si fiican isugu qasaysaa oo waxaa ka soo saaraysaa kareem aan caadi ahayn ayuu ku noqonayaa, wuu isdhexgalayaa. Sababtoo ah fasaliinka wuu dhalaalayaa. Markaad biyaha kulul dhex dhigto dhalaal ayuu noqonayaa. Iyo yaanyadii aad soo hooshay way isdhexgalayaan. Markay isdhexgalaan oo kareem caadi isku noqdaan, isku milmaan, ayaad waxaad soo binaysaa sida caadada noo ahayd. Wajigaaga ayaad soo dhaqaysaa. Wajiga markaad soo dhaqdo oo aad soo nadiifiso wajigaaga ayaad soo marinaysaa. Marka adiga 15 daqiiqo ama rubi saac ama 20 daqiiqo ayaa ku haynaysaa wajigaaga. Markaad ku hayso wajiga xoogaa yarna waa ku masaajeynaysaa oo wajiga aad ma isaga rugaysid. Wajigan aad loo rugo looma baahno. Waxaa loo baahan yahay si tartiib ah oo naxariis leh inaad wajiga ugu masaajeyso. Kadib adiga 15 daqiiqo 20 daqiiqo markuu ku marsanaado waa iska dhaqaysaa. Saabuunta haysato sida caadada noo ahayd ama face wash-ka haysato ayaad wajiga isaga dhaqaysaa. Markaa saas idin leeyahay, wajiga uma wanaagsano in maalinba nooc face wash ah, maalinba nooc saabuun ah in lagu dhaqo ma u fiicno. Waxaa u wanaagsan wajigaaga
hal shay inaad u goysid oo halkaas shayna aad ogtahay inaa wejigaaga uusan maxaa la dhahaye dhib uusan kaaga imaanayn ama wejigaaga uu anfacayo ayaa wanaagsan inaad maxaa la dhahaye aad u goyso. laakiin haddaa midba mar aad wejigaaga ku dhaqdo ma garan kartid maxaa la dhahaye wejigaaga adiga inay saabuunta ama face washka oo dhibkaaga kuu keenay ama inaa waxaa marsanaysid ay dhib kuu keeneen ma garan kartid. marka waxaa wanaagsan qofka markii uu wejigiisa wax ku dhaqaayo hal shay inuu macnaha uu laasimto ama uu joogtay ayaa wanaagsan. qof walbana wuu garanaya wixii wejigiisa u wanaagsan u yaqaanaa. marka insha Allah waa tijaabinaysaa un. marka waxaan ka wadaa face washka ama saabuunta ay isticmaalaysid. marka alaabtan sida idin sheegay aad ayay ku anfici doontaa haddaa wejiga daldalool ku leedahay. aad ayay ku anfici doontaa waana ka faa'iidi doontaa insha Allah. marka waxaan idin soo sheegay videoga haddaa ila socotay bilowga hore. yaanyada ayaad waxaad suubinaysaa waa laba shay. yaanyadaas waxaad suubinaysaa waad soo hoolaysaa geed lagu hoola ayaad ku soo hoolaysaa. kadibna markaad soo hoosho waxaad suubinaysaa baaquli ayaa kusoo shubanaysaa oo nadiif ah. markaad kusoo shubato kadib fasaliinka qaado haafkeed ayaad soo qaadanaysaa. kadibna yaanyadii iyo fasaliinkii ayaad isku dhex ridaysaa. marka aad baaquliga aad iskugu keento fasaliinka ma dhalaalayo waa la wada ogyahay soomahan. haddaad ku dartid yaanyadii aad soo hooshay kuma dhalaalayo. waa inaad biyo soo kuleysataa. biyahaas markaas oo kuleyl ah waxaad suubinaysaa baaquligii oo aad kareemka ku diyaarsanaysay aad kusoo diyaarsatay ayaad soo dhex dhigaysaa. kadib biyahaas kuleylka ayuu ku dhalaalayaa fasaliinka iyo yaanyadii ay isdhexgalayaan. markay isdhexgalaan ayay waxay ku noqonayaan kareem kaale iska araga ayuu ku noqonayaa. kareemkaas oo kaabi'inaya daldaloolka wejiga. wejigaagana wuxuu ka dhigayaa weji sabiibax oo kaale arag oo qurux badan ayuu kaaga dhigayaa. midda kaleeto yaanyada wejiga way caddaysaa oo aad ay wejiga u caddaysaa. wejigana way qurxisaa oo wayna ku dhalaalinaysaa. marka iyadoo uu daldaloolkiina kaa qaaday ayuu wejigaagana wuxuu noqonayaa weji qurux badan una kuu cad una kuu dhalaalayo. uuna kaa qaaday daldaloolkaas wejiga ku yaalo ayuu kaa qaadayaa. marka insha Allah waa laba shay oo kaale iska araga oo aan kala dhicin oo aad u wanaagsan. fasaliinka sidiisaba asagana sidoo kale daldaloolka wejiga uu ka qaadaa. wejigana xoogaa hadduu ka adag yahay xoogaa adiga u qarfax ka yahay xataa wuxuu kaaga dhigayaa weji jilcan oo kaale iska arag oo baby ayuu kaaga dhigayaa. marka asxaabteyda qaaliga ah ayaan jeclahay halkan ku jiro. mar labaad waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan. haddaa buuq iyo qararac iyo qajajac maqashiina karaali noqda. insha Allah codkaygana kasoo xabiib yahay waxaan rajeynayaa inaad maqli doontiin asxaabteyda qaaliga ah ee aan jeclahay. halkan haddaa ila soo gaartid waxaan kaa codsanayaa oo codsiga ah inaad videoga like ii saartid. wax ay ka dhibaysa malahan videoga xaqiisi waaye. like ii saar ina share garee waa codsi. haddaa subscribe ii ahayna sidoo kaleeto subscribe ii saar. waxay kaa dhibaysa malahan inaa ii saarto waana ku mahadsantahay ayaan ku leeyahay. aadaan u mahadsantihiin. marka koowaadna ilaah ayaa mahad iska leh. ilaah ayaa u mahad celinaynaa. alxamdulilah ayaan leenahay. ilaah ayaa halkaan iskaa keenay. aad ayaa u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga ah. waxaan rajeynayaa 20,000 inay gaarsiin doontiin haddii ilaahay idmo. channelka 20,000 ayuu kusii socdaa. insha Allah wax yar nooga dhiman. wax yar insha Allah inay noo dhamaystirtaan oo haddaa soo gashid aad subscribe-ka adan maxaa la dhahaye aad ii saarto yaa oo aadan iga baqiilin waan rajeynayaa. insha Allah anigana waxaa idiin soo gelinayaa video walbo video uu ka fiican yahay oo ka waxtar badan yahay oo wejiga si dabiici ah aan ku cadeyn karno. maxaa la kuna dhalaali karno madmadow isaga qaadi karno. timihii oo aan ka maqnayn insha Allah waa idiin soo gelinayaa haddii ilaahay idmo insha Allah. marka aad u mahadsan tahay hadda halkaa ila soo gaartay. aad u mahadsan tahay asxaabteyda qaaliga aan jeclahay. maanta videogeennii halkaas ayuu noogu egyahay. waana idinka sii tagayaa asxaabteyda qaaliga. waa anigoo qurux dumar official tuwa
waxaan idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod dambe oo xiiso leh. Fiidiyoogan fiidiyooga xigo inta aan ka gaarayno insha Allah.